Assalaamu calaykum. Hadda waxaad noqotay mid ka tirsan ama xubin ka mid ah Smooth English System. Waxaadna go'aansatay inaad English barato guud ahaan. Laakiin su'aal ayaan qabaa. Ma leedahay hadaf cad aad u socoto mise waxaad ku jirtaa barasho keliya? Ka hor intaadan bilaabin barashada erayo iyo jumlado, aan marka hore baranno sida qalbigaaga iyo maskaxdaada loogu diyaariyo hadaf cad. Marka, muhiimadda hadafka in hadaf la samaysto ama maxay ahayde gool aad samaysatid waa waxa ugu muhiimsan ee aad maanta samayn karto. Haddii maanta aad hadaf samaysato, beritoole hadafkaadii ayaa maskaxda ku haysanaysaayo ama wadada hayso waa iska war haysaa. Laakiin ka waran haddii aad Inglisha barana ku hayso, aad daalaysid laakiin aadan hadafba ka lahayn. Marka koowaad waa muhiime hadaf lahow. Setting a goal at the start. After the end of the meeting, I want you to have a clear goal with English. Setting goal, dejisada hadaf ama goal. Setting waa dejin, goal hadaf inaad dejisatid ama aad dejisid at the start bilowga. After the end of the meeting, dhammaadka meetingkan ama casharkan, I want you, waxaan rabaa to have inaad haysatid a clear goal hadaf cad with English ee Englishka. Meetingka marka uu dhammaado ama videogan marka uu dhammaado waxaan kaa rabaa aan kaaga baahanahay in aad haysatid ama aad dejisatid hadaf cad. Aan ku bilowno marka su'aalahan. Su'aalo ayaan kuu dirayaa. Videoga ayaa waxaa leedahay pause. Okay, marka su'aasha fahantid, jawaabteeda ayaa qoranaysaa. Markaas kadib ayaa u gudbaysaa marka qaybta kale ee jawaabaha, okay? Su'aasha koowaad aan ku weydiinaya waxay tahay, why do you learn English? Maxaad Englishka u barataa? Reasonka ii sheeg. 1, waxaan u bartaa Englishka. 1, 2, 3. Waxaan kaaga baahanahay marka, waxaan kaaga fadhiyaa inaad ii sheegtid sababta aad Englishka u baranaysid adigoo weliba taxaya. 1, sababtaas iyo sababtaas baan u bartaa. 2 iyo 3 ilaa 3 pointi ama 3 sadar ama 3 reason ama sababood ii qor. Then waxaa u gudbaynaa midda labaad. Midda labaada waxay tahay, imagine what happens if you learn how to speak clear English. Waxaad imagine garaynaysaa, aad sawiranaysaa, ka waran bal, hadda kalaasaya fadhidaa, video ee aad daawanaysaa ama dhegaysanaysaa cod, adigoo raba inaad English barato. Englishkii aad dhibtaasoo dhan ka maraysay ka waran haddii caawa, haddii aad iska seexato beritoole aad soo kacdo, aad is aragto adigoo Englishkii aqoon u leh, si fiican English ugu hadlaaya, maxaa dhici lahaay? Okay, noloshaada hadda siday tahay may ahaan lahayd, maxaa iska kaa bedeli lahaay? Marka, waxaa lagaa rabaa inaad ku fakartid, okay, aad ka fakartid waxa dhici lahaay. Qof noocee ah ayaa noqon lahayd? Ma qofkaadii baad ahaan lahayd? Noloshaada sidan may ahaan lahayd? Kalsoonidaada sidan may ahaan lahayd? Mise waxaa iska bedeli lahaa? Haddii ay tahay jawaabtaada marka, wax ayaa iska bedeli lahaa, waxaan kaa rabaa inaad ii sheegto oo 3 meel iigu kala qorto waxa iska kaa bedeli lahaa. Maxaa waaye marka waxyaalaha isbedeli lahaa? Waa waxa aan u baahannahay. Okay, midda saddexaada waxay tahay, let me know what you want to pay to learn English. Dabcan noloshaan wax walbo aad adigu u baahan tahay waxaad ku bedelanaysaa wax kale. Tusaale, suuqa ayaad aaday, waxaad jeclaatay catar yar, okay? Isla waxaa u baahan tahay si aad catarkaas u hesho inaad lacag bixisid, okay? Waxaa u baahan tahay inaad wax bixisid. Tusaale, waxaa rabtaa inaad gymka aadid, jir ahaan aad isu bedeshid ama caafimaadkaada wax ka bedeshid. Sax? Isla marka aad gymka tagtid waxaa u baahan tahay inaad lacag bixiso. Marka koowaad ee gym membershipka aad bixiso, then dhidid badan kaa baxo, dadaal badan aad bixisid, waqti badan, juhdi badan aad bixisid si aad wax u hesho. Noloshaan marka wax free ah ma jiro. Wax walbo aad u baahan tahay waxaa ku daba xiran ama waxaa daba socdo inaad price bixisid. Sidaasi la mid ah, English ayaa rabtaa inaad barato soo maaha, maxaad u baahan tahay inaad bixiso. Okay, ka fikir waxa diyaarka ka ah, aad mar walba aad diyaar la tahay inaad bixiso, soo sheeg. Soo sheeg maxaan ka wadaa, ani ii sheeg maaha, laakiin adigu qoro hadaf waaye. Midda koowaad qor jawaabaheeda, midda labaad qor, midda saddexaadna qor. Waxaan filayaa inaad jawaab cad u heshay dhammaan su'aalihii aan ku weydiiyey. Haddii aadan jawaab u helin ama si fiican aadan u fahmin, kuwani waa tusaalayaal aad adigu taada ama hadafkaaga aad ku dabaqi karto si aad hadaf u samaysatid. Okay, su'aasha koowaada waxay ahayd, maxaad English u barataa soo maaha? I want to learn English because I want. Waxaan u bartaa Englishka sababtu waxaa waaye to get confidence, inaan kalsooni helo, to communicate with English speakers, dadka Englishka ku hadla inaan ula hadlo si kalsooni leh ama aan kula xiriiro. Waxaan u baranayaa Englishka for educational purposes, dano waxbarasho, university, jaamacad ha ahaato,
technology inaan teknolojiyada wax ka fahmo or so iyo wixii la mid ah. English maxaad u barataa ma ahayna su'aasha haa. Waxaan rabaa English inaan barto sababtana waxaa waaye to get a good job inaan shaqo fiican helo, to make more money inaan lacag badan aan sameeyo. Okay, midda kale ee ugu dambeysa waxaa waaye to explore. English ayaan baranayaa sababta waxaa waaye waxaan rabaa inaan caalamka oo dhan maro, aan safaro ama inaan caalamka oo dhan u safro. Meel walba aan tago anigoo weliba isticmaalaya luqadda Englishka. Okay, midda labaada waxay ahayd imagine what you should have. Waxaad imagine garaysanaysaa aad sawiranaysaa waxa aad haysan lahayd haddii Englishkaagu uu ahaan lahaa mid fiican. Waxaa la dhahay marka waxaan ahaan lahay qof kalsooni leh. I should be confident. Waxaan ahaan lahay qof kalsooni leh. Okay, I should be a good communicator. Waxaan ahaan lahay qof si fiican dadka ula xiriiri kara with English speakers. Dadka Englishka ku hadla markaan la hadlayana waxaan ahaan lahay qof si fiican ula hadli kara. Okay, waxaa la dhahay midda kale waxaan ahaan lahay qof educationally good, aqoon ahaan fiican, university jaamacadda ku fiican, technology teknolojiyada fahmi karo iyo wixii la mid ah. Sababta waxaa waaye luqadii ayaa taqaanaa, English ayaa taqaanaa iyo jaamacaddii waxaa ka baranaysay waxaa waaye luqadda ay ku baxdo waa English. Waxay kuu fududaynaysaa marka inaad casharadii fahanto, macalinka markuu maxay ahayde lectureska ama casharada uu sharxaya si fiican u fahanto, buugaagta akhrisan kartid. Haddii aad u baahatidna teknolojiyadan hadda maxay ahayde casriga ah ay kuu fududaynayso inaad adiguba wax isbartid oo sidaada maxay ahayde daraasad u samaysid ama aad maxay ahayde wax badan raadisid. Midda kale waxaa waaye have a good job with good salary. Saacaddanba waxaan fadhi lahaa xafiiskayga anigoo saacad walba ku xisaabtamaya lacag badan ama mashaar fiican. Midda kale waxaa waaye I should make more money. Lacag badan ayaan samayn lahaa, aniga ayaaba ganacsi samaysan lahaa. I should explore the world or travel. Saacaddan waan safari lahaayo haddii aan Englishkayga uu fiicnaan lahay, lacag badan ayaan sameeyey, aqoon ahaan maxay ahayde wax fiican ayaan bartay. Okay, dadka waan la hadli karaa. Saacaddan marka waxaa waaye meelaha qaar ayaa dalxiis u joogi lahaa ama wadamadaas ayaan maxay ahayde dalxiis ku mari lahaa. Midda ugu dambeysa waxaa waaye waxaan ahaan lahaa saacaddan qof haysta fan. Fan waxaa waaye qof faraxsan nolosha labada maalin uu nool yahay, ku faraxsan maxay ahayde ku enjoy gareeya, ku raaxaysta. Okay, marka intaasoo dhan baa gacanta ku hayn lahaa waaye haddii aan English si fiican ugu hadli lahaa ama aan aqoon lahaa. Midda saddexaad ee nala weydiiyaa waxay ahayd noloshaan sideedaba isii qaado waaye. Wax walba wax ayaa lagu beddeshaayo. Maxaad u baahan tahay ama diyaar kaa ah eed hadda rabto inaad Englishka ku beddelato soo ma ahayn? Haa. Okay, waxaa la dhahay marka what you have to pay, waxa waajibka kugu ah inaad bixiso waxaa waaye is the most useful things you have. Waa waxyaalaha ugu qaalisan ee adigu hayso. Marka English aad baranaysid waxaad u baahan tahay inaad bixisid waxyaalaha ugu qaalisan noloshaada aad haysatid marka laga reebo caafimaadka. Waa maxay waxa ugu qaalisan aan haysano? Waqtiga ayaa ugu qaalisano. Waqti ayaan haysanaa. Si aad English u barato waxaad u baahan tahay inaad waqti badan aad gelisid. Midda labaad waxaa waaye effort. Dadaalka waa wax aad u qiimo badan. Waxaa la dhahay marka English markaa rabto inaad barato waa inaad dadaal badan bixisaa. Okay, waan baranayaa, casharka ayaan qaadanayaa, waan qorayaa, waan seexanayaa, laguma barto ee dadaal ayaa loo baahan yahay. Midda kale ee ugu dambeysa waxaa waaye si aad u barato Englishka waxaad u baahan tahay inaad lacag bixiso, aad buugaag iibsato. Okay, halkaas ayuu noo joogaya casharkeena. Waxaan filaa in si fiican loo fahmay. Qof walba hadaf ha samaysto, hadafkiisa ha dejisto. Haddii aadan Englishka aqoonin wareer ma laha. Hadafkaagoo cad si Soomaali waadax ah u qor. Hadafkaada si waadax ah af Soomaaliga ugu qor. Su'aasha koowaad, midda labaad, labadaasaa muhiim ugu ah. Midda saddexaad sidaas muhiim uma ahano. Qof walba wuu fahansan yahay oo wuu og yahay. Waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo maca salaama.